dibadbaxyo waaweyn ayaa ka socda magaalada Muqdisho gaar ahaan iskoyska Boondheere waxaa iskugu imaaday kumanaan qof oo ka cadhaysan dil bareera oo loo geystay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayadoo waayadii ugu dambeysay ay soo badanaysay shirqoolada iyo waliba dilalka tooska ee loo geysanay saraakiisha ka tirsan ciidanka qaybihiisa kala duwan waxaan halkan kula wadaagi doonaa sababta kaliftay in dawladdu ay beegsato saraakiisha ciidamada ayadoo dhanka kalena dawladdu ay horboodayso abaabul xoogan oo lagu soo afjarayo kooxaha khawaarijta ee arxanka daran ee ummadii Soomaaliyeed qayrkooda ka reebay ee dhibaatooyinka ku hayo sidoo kale tan deegaano fara badan ee ognahay dawladdu inay ka xoreysay oo ay gacanta ku hayeen ururkaasi argixisada haddaba maxay tahay sababta ay dawladdu dhinacna ay ururka ula dagaalamayso dhinacna ay u leynayso qaar ka mid ah saraakiishii ciidamada ee horkacayay duulaanka lagu xoreynayo dalka waxaan halkan kula wadaagi doonaa xogahaasi iyo waliba kuwa kaleeto dheeraada oo la xidhiidha musuqmaasuq baahsanaa ee dawladda lagu eedeynaya maalmahanba iyo waliba arrimo la yaab leh oo dawladdu ay ku sifowday dhowrkii toddobaad ee ugu dambeysay ee arrimahani ay soo baxeen balse intaasi ka hor hadday tahay markaadii kugu horeysay barnaamijkan uu soo gaadho sii sheergara oo la wadaag asxaabtaada kaleeto aynu ku bilownay dadaadu fara badan oo gaaraya dhowr kun oo qof ayaa iskugu soo baxay iskoyska Boondheere ee magaalada Muqdisho halkaasi waxay ku dhigayaan dadkani dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan dawladda federaalka Soomaaliya taasi oo maanta dishay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiishan waayadii dambaba waxay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah waxayna sidoo kale haysteen ciidamo fara badan kuwaasi oo gebi ahaanba ay dawladdu ku eedeysay inay amar diida sameeyeen laakiin ciidankani wax amar diida oo uu sameeyay ma jirin waxay dawladdu gebi ahaanba xallin weyday ciidanka waxa uu ka tabanayo iyo waxa markaasi uu codsanayo maaha markii ugu horeysay ee ciidan uu gebi ahaanba godoodo oo sidoo kale tan dawladda uu gebi ahaanba ka codsado waxyaabo markaasi ku saabsan xuquuqdooda laakiin dawladdu waxay xallin weyday in ciidankaasi waxa ay ka cabanayaan saraakiishaasi iyo waliba sidoo kale waxa uu salka ku hayo inay saraakiisha amardiida samayso ayay gebi ahaanba dawladdu ay markaasi xallin weyday waxayna taa bedelkeeda dawladdu samaysay in saraakiishii iyo ciidamadii goobta ay ku jireen intay u galaan in la laayo saraakiishii in ciidamadii la xasuuqo la laayo xilli dawladda federaalka Soomaaliya ay hor yaalaan qodobo waaweyn oo la xidhiidha in dalka la xoreeyo in dalka laga dhiciyo cadawga kusoo duulay ee biyihii Soomaaliyeed xooga ku qaadanaya wadda Ethiopia in damacyada markaasi dawladaha dariska ay markaasi wadankeena ku boobiyaan in dawladdu ay gebi ahaanba arrimahaasi wajahdo bale ciidamadii ku sugnaa magaalada Muqdisho ee amniga sugayay ee gebi ahaanba furimaha dagaalka ku jiray ee rafaadsanaa ee mushaarkoodii laga goostay ee xuquuqdoodii dawladdu ay gebi ahaanba ay cuntay ama qaabon ay u isticmaashay ayaa gebi ahaanba dawladdu ay leynaysaa oo u adeegsanaysaa qaar kale oo calooshooda u shaqaystayaala oo dawladda ka amar qaato saraakiishan waayadii dambaba waxay ku sugnaayeen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho waxayna ka cabanayeen xuquuqdoodii oo la dulmay raashinkoodii oo la cunay iyo waliba dhaqaalahoodii iyo mushaaraadkoodii oo la lunsaday oo jaab dad leeyahay galay arrimahaasi markay dhacday saraakiishan waxay gebi ahaanba sheegeen inaysan يعني قادنين إن جبيهام بحقوق ضد الوطن تو سيدا كلاتنا الله استعماله سيدا أي مركزي شخصيات جونية أي ربان أرماز مركز عدي سراكيل أي الله دري يقول بس سيدا كلاتو إذا ما هو بيسن وحنا جورجو ذا لو جت جاي سيدا كلاتنا لو جت تكتي سراكيشي إذا ما دي هالكاسي قصونا وأنا مدة كانتي إن الشعب كمجال المقدسو أو مرول بلوجا برتين حريص إن يكك عن أرنتاسي سيدا كلاتنا يوم ظهران إسلام كان يوضعتان ciidamadii lagu tuhmeeyay inay waxaasi sameeyaan shacabadu fara badan ayaa magaalada Muqdisho iskugu soo baxay oo ka kacsan arintaasi taadiga ciidamada lagu xasuuqay iyo waliba dawladda talaabooyinkii waayadii dambaba ay ka qaadaysay ciidamada iyo waliba saraakiisha sarsare iyadoo nugnay saraakiil fara badan oo kamid yahay Farxaan Qoroole taliyay ciidamada danab taliyayaal fara badan ee lagu xasuuqay qaar kalena oo aan la dilin oo ay suurtagal weeyday in la toogtana xilka dhigis lagu sameeyay sidii taliyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyay daada yaraa ee ogeyn inuu xoriyo dhul aad u fara badan iyo waliba taliyay ciidanka dhulka oo asaga laftirkiisa xilka qaadis lagu sameeyay waxa kamid ah taliyay booliska oo asna xilka qaadis inta lagu sameeyay waliba bahdilaad loogu daray dawladdu waxay dhinacna waday waarsi gooni ah oo lagu waarsanay shakhsiyaad gooni ah oo ay kamid tahay dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saraakiishii la dalacsiyay saraakiishii xilligaasi aadka ugu dhawaa
la shaqaynayay oo xasan sheekh maxamuud uu ballan qaaday in saraakiishaasi xilka uu ka qaadi doono qaarna uu layn doono waxaana arrintaasi ku daliila inay jirto farxaan oo lugaha dheeqayaa lagu gelinin iyo farxaan qoroole allah u naxariistay goobta lagu dilay iyo sida loo dilay arxanka darreyd iyo weliba saraakiishii iyo ciidankii loo isticmaalay waxaad arki kartaa saraakiisha sida loo shaqoolayo sida loo laynayo waana arrimo markaasi waayadii dambe dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay ku sifowday inay saraakiisha layso inay ciidamada ay u kala eexato qolo iyo weliba dhibaatooyin fara badan oo shacabka markaasi lagu niyad jabinayo arrimahaasi ayaana gebi ahaanba ay shacabku ka kaceen waana arrinta keentay inay shacabku gebi ahaanba maanta ay mudaharaadaan oo arrimahaasi ay ka kacaan shacab aad u fara badan ayaana iskugu soo baxay magaalada muqdisho waxaana filaynaa in cadaaladdu ay shaqayso oo sida markaasi shakhsiyaad gooniya ay rabaan aysan wax u dhicin guud ahaan daawadayaal waxyaabaha kasoo kordha qaybaha dambe wararkan ayaan kusoo gudbin doonaa tan iyo intaa mid ka xig kulmi doona waxaad ka dhegeysataa si amaanaan